dhismahan waxay bulshada u arkaan inuu bilow u yahay horumarka iyo muuqaalka dawladnimo halka lagu wada in laga hirgeliyo dhismaha cusub ee madaxtooyada ayaa la soo sawir muujinaya qaab dhismeedkeeda sida uu muujinayo sawirkan dhismahan waa mid bilicsan oo muuqaalka gaalkacay ku soo siyaadanaya wax badan waxa loo arkaa inay madaxtooyadani ka mid noqonayso dhismayaasha ugu qurxoon ee xarunta gobolka Mudug madaxweynaha dawladda Puntland ay hore u sheegay waqti yar gudaheed indhaha dadka gaalkacay inay qaban doonaan wax ka bedelka hanaanka magaalo ee gaalkacay bulshada magaalada gaalkacay oo maanta warbaahinta la hadashay ayaa soo dhaweysay dadaalada horumarka ay dawladdu ka wada gaalkacay waxay ku baaqeen si degdeg leh in loo dhiso dhismayaasha ay ka mid tahay madaxtooyada rabbil caalamiin ilaa baan noo keenay dadkii ku ganacsanaya guriga dawladda hadii laga burburiyay oo maanta meel ilaa ay taagtaagan yihiin guriga fiican baa loo dhisaya oo aniga iyaga iyo kulli aniga ruuxdeedu waa laga burburiyay waa la dhisaya guriga fiican qurux leh oo nidaam leh baa la dhisaya awal guri toqoshaan ku jiri alxamdulillaah rabbil caalamiin saacadii wali waad wanaagsantahay waana sharafsantahay dalkayana wixii aan la rabay maanta aad maartay ku wada burbursan oo baaba'san oo aan waligeed la taaban buu ahaa walaalow gacal iyo madaxweyne waxaad yeelaysaa dhis burburina waxa la haysto waxa dadku maartay isaga daashoonayo kulli burburi wanaag ka soo saar iyo sharaf iyo madaxtooyadana meesha ay ahaan jirtay ka dhis waad ku mahadsantahay boqolkiiba boqol waligaana waana hayn doontaa haddii alla idmo waxaan leeyahay madaxweynaha baan u hormarinayaa waxa wada hadlay cirka iyo dhulka wada hadlay dhulku wuxuu yiri oo heesay maanta ka horow maamul maan helin buu yiri cirka dhulkii baa yiri maanta ka horow maamul maan helin waa galadii weeyo galalkii aan gagay baa abqadii oo aqreyntii u bixii isnaafeen buu yiri xidigaha dayaxa oo xaqaan idin su'aalay xalay maxaad ku barideen buu ku yiri waxaan leeyahay meesha la yiraahdo gobolka Mudug agoon buu ahaa Maxamed Siyaad Barako ka hor kadib agoon buu ahaa madaxweyne ma lahayn cid wuxuu qabatana ma lahayn maanta wuxuu helay madaxweyne wuxuu qabanaya oo aan qabiil ku faanayna wadaninimo ku faanaya oo ku qabanaya inay gaalkacyo wadani tahay oo ku faanaya gaalkacyo inuu ka dhigo u diriro magaalo madaxdii Soomaaliya inay noqon karto oo u diriro sababtoo ay tahay waxay la siban tahay meesha la yiraahdo Dirirnabe Hargeysa meesha la yiraahdo Jigjiga Xamar boosaaso surur geed la yiraahdo ay halka ka surur baa la yiraahdaa intaas bay barabareedii tahay mashruuca lagu dhisay dhismaha madaxtooyada wuxuu qayb ka yahay qorshaha lagu horumarinayo gaalkacyo oo hore loogu sheegi jiray inay tahay magaalada dawladdu ka sii jeedo wasaaradda ka tirsan xukuumadda ayaa dhawaan ka bilaabaya gaalkacyo dhismayaal cusub oo ay ku shaqeyn doonaan kadib markay shacabku wareejiyeen dhismayaashii dawladda ay deganaayeen tan iyo burburkii dawladda dhexe